gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani magaalada Togwajaale ee gobolka Gabiley ayaa gudiga ka hortagga xanuunka safmarka ee Covid-19 ee heer gobol Gabiley iyo heer qaran ku tilmaamay kuwa ka gaabiyay shaqadii loo igmaday isla markaana gabi ahaanba ilaaway ka hortagga iyo la socodka xaaladda cudurka faafaha ah ee coronavirus ee magaalada Togwajaale taasi oo uu sheegay in magaaladani ay tahay magaalo xuduudeed halis u ah in cudurkani ka soo gudbi karo una baahan in xoog la saaro sidoo hadalkiisa u dhigay gudoomiyaha xisbi mucaaradka wadani ee magaalada Togwajaale ee gobolka Gabiley mudane Cabdikariin Cali Caydiid oo khamiista 28 May codka bariga Afrika u waramay ayaa sheegay in magaalada Togwajaale aanay joogin gabi ahaanba kooxaha caafimaadka ee ka hortagga caabuqani faafaha ee Covid-19 waxaana uu gudiga ka hortagga heer gobol Gabiley iyo heer qaranba ku dhaliilay inaanay iska xil saarin ilaalinta iyo badqabta bulshada magaalada Togwajaale waa magaalo ganacsiyeed xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxeeya ku taala waa meelaha ugu muhiimsan in la saaro awoodda ilaalinta iyo ka hortagga xanuunka waa meelaha ugu muhiimsan in aanay ka caqaadin xubnaha gudida heer qaran ee loo magacaabay xanuunkan iyo gudida heer gobol waxaan nasiib daraa ma jiraan cid la ilaalinaya cid waxa weeyaan la baaraya cid wax ka qabanaysa khaasatan Togwajaale waxaan aaminsanahay markaa Togwajaale maadaama ay tahay meeshii ugu muhiimsanayd in culays la saaro haddii iyadu cid la tahay maxaad malaynaysaa dalka intiisii kalena waa la mid un waxa weeyaan wax ka qabashada coronavirusku maaha in masaajidada halyaan la tagin la yidhaa oo salaadaha ilaahay yaan la isugu iman oo dadka kala yaacaan la yidhaa oo salaadun dadka loo diido meeshaad gashaa waa jaam hoteelkaad gashaa waa jaam sidii caadiga ahayd baa Togwajaale hoteeladeeda maanta haddaad gasho sidii caadiga ahayd baa dadku loogu cunteeyaa oo waxa weeyaan buuqa ka dhacaya aad yaabtaa meelaha suuqa waa la mid dee gudidii heer qaran ayaynu leenahay maxaad u malaynaysaa gudidii heer gobolna hal yoom isagu soo dhex taagin bara saabku maalin igu sawir cadde ayuu yimid gabigiisba ciidu kula xisaabtama ma jiro maadaama gudoomiye gudida yahay isaguna coronavirus ee heer gobol dhinaca kale gudoomiye Cabdikariin ayaa sheegay in aan magaalada Togwajaale lagu dhex arag qalab iyo kooxo caafimaad oo wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland warbaahinta ka sheegtay in loo soo diray magaalada Togwajaale sidoo hadalkiisa u dhigay qolada caafimaadka ee wasaaradda caafimaadku xirgeeye Togwajaale awood baan sarno 24 saac ku celceliya tiiman baan u geeynu ku celiya waa tiiman ku geeyay ma hayna tiimaad geysay xirgeeye ayaanu ku leenahay waxa weeyaan TV-ga iyo saxaafadda intaad u yeerataan Hargeysa gudaheeda aad go'aamada iska soo saaraysaan waxaan ahayn dadku iyo shacbigu toonaydi kama hayo war ummadda ha u hoosaasinina caqliga ummadda ha ku ciyaarina gabagabadii mudane Cabdikariin Cali Caydiid gudoomiyaha xisbiga wadani ee magaalada Togwajaale ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu madaxda qaranka shaqada ay qaranka u hayaan meel kasta oo ay joogaanba waxaan baaq u diraynaa madaxweynaha waxaan ku leenahay madaxweyne maaha inaad muraayadii greenka haydun xidhnaato waxa weeyaan nimco lagaaga sheekayo waxbaanu qabanay lagaaga sheekayo wax la qabtaa ma jiro adeer waxa weeyaan ummadda haddaan lala xisaabtamina waxa weeyaan taasoo kala dhacaysa cidii wax loo igmaday aad u diratay kula xisaabtan Togwajaale oo kamida meelihii aad tilmaamaysay kamida wax adeeg caafimaad oo ka jira ma jiro totally Sakariye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika magaalo ganacsiyada Togwajaale